السلام عليكم يوتيوب channel ka daawana sawa qays qaysar ku soo dhawaada dilana maanta waa maalin cusub muuqaal cusub iyo magaalo cusub waxaanu hadda hoosteeda taaganahay buurta caanka ee Laasgeel halka buurtan iga dambayso waxa la goobta shaydaanka dadka deegaanka noo sheegay waxa weeye Laasgeel xagga dambe looga bixiyay laakiin dadku waxay u yaqaaneen goobta shaydaanka oo loogu magac daray painting-kan iyo waxyaabahan badan ee ku sawiran dadku waxay moodi jireen waxaan ay shayaadiin sawireen laakiin xagga dambe lagu ogaaday inay aasaar qadiimi yihiin muuqaalka waxa igu helinaya saaxiibka Cabdalla Jamaal waxa weeye isaguna maanta u diyaarayno buuraha koro aad baan idin salaaminaa asxaabta ku xidhan qays qaysar waan ku faraxsanahay inaan maanta hortiina soo istaago vloggerkeeni weynaa baan la joogaa maanta shaydaamadu liftirkooda soo naarayna maceeba iyagana soo naarayna aan eriinayna muuqaalka waxa duubaya Dr. Charity inuu waxaanu koraynaa buurta halkeeda ugu sarreysa sidoo kale dadka taageerayaasha ee mar walba qaybta comment section-ka noogu reeba waxaan jeclaan lahaa inaan idin la dalxiiso waxaan jeclaan lahaa inaan halka idin la tago halka maan arkin waxaanu siinay fursad maanta dalxiiskan waxaan ugu wehelinayaa laba qof oo waxa weeyaan dadka taageerayaasha kamida xalay tola ayaan Instagram-ka ku baahinay bari tola waxaan u soconaa Laasgeel waxa weey cidii raacisay waa anaga ku fargareynayna laba qof baan ka soo xulnay insha Allah labada qof baan iminkana halkan bay sii korayeen iyagu way naga sii horeeyeen insha Allah iyaguna waad arki doontaan daawadayaasha liftirkooda waqti la qaadana maceebade ma hayb sidoo kale waan wadi doonaa waxa weey dalxiis kasto aan tagno waxaan isku dayeynaa inaan laba qof ama saddex qof ama intii uu noo saalo insha Allah ilaahay aan xulno ina marsha asxaabta waxaan idinka luunay haddii aad bartani manayso hooy kabacday soo qaado biyo badan iska soo qaado سمية سكورن سمية waxay kamid ahayd dadka channelka ku xiran ee wax weeyaan fursad u siinay maantaynay dalxiiska naga soo qeybgasho oo neeftuuraya ما سيء قيسن انتو دوقتي أنا كم نقضى حبلها halkan inkan joogna waa xagee ولا زكيد waxa meesha ku sawirana waa والله laabtan waxa weeyaan war maxay laabtani hilibgeel hay markaa waan ka dambeynay hilibgeelka waan ku soo qaadanay marka ayaa ku qalmarnay hay'ad xagga mariyad waa iga maxsabay la ilaaha illa allah waxa weeyaan ninkan wuxuu sii bilaabay hilibgeeli iyadoo dadkiiba ay halkan sawirro iyo wax ku galgalayaan hilibkan baan cunaynaa kadib markaan caloosha buuxsano ayaanu idin sharaxaynaa meesha hilibka markaan caloosha buuxsano ayaanu idin sharaxaynaa sawirradan iyo hawlahan oo dhan laakiin waxa weeyaan buurta inta leeg baan ka soo lugaynay halkaa weeyaan halkan ka soo lugaynay gaarigeyga waa ka halkaa yaraaday xabadeedo rahaba la moodo waxa weeyaan saasaan u soo wareegnay jaran lagu sameeyay kadibna iminka buurta dhexdeeda aan taaganay markaan iminka qadayno ayaan sharxi doonaa insha Allah oo kale cabsidow waxa weeyaan adigu waad sii bilowday oo dadkii oo dhan aan cunin baad iminka sii cunaysaa maxaa leedahay tan waxa waa lagu ababiya iya ina ma wada lagu ababiya iminka meel la jiibsatay xataa wadu beer diyaalaynaysaa qabal faraxalkaaga yara shuur xagga oo mid baa la cunayba intii karoonu soo baxay sida loo faraxsho ma ahayn laakiin waqtigan ii saamaxay faraxalka kale soo marista waa kan baalkan waa maraqii weeye maraqi isaga bac baan ku soo shubanay waa la nuugayaa sida ice cream kana waa bariiski weeyaan sidoo kale markaan iminka qadadan ku cunno waan ku hagaajinaynaa haddii niyadaada ku jirto waa laga degay maxaa la yiraahdaa faraxalkan waxa la yiraahdaa teed ma jiro moogti marka waa ciida الحمد لله قبل نمك هيك halkan imika fadhiyo waxa weeyaan ummadihii hore ee bariga jiri jiray 9 kun oo qarni ka hor
waa halkii looga talin jiray waxa weeye ninka waddanka u arriminaya halkan buu fadhiisan jiray sababta halkan loogu dooray dadka deegaanka waxay noo sheegeen inay tahay waxa weeye dadka halkaa hoose fadhiista sababta qofka halkan fadhiya oo ugu khudbadaynaya waxa weeye buurahan oo dhan baa codka ku soo celinaya dabadeedna qofka ilaa halkaa jooga si fiican baa codkiisa looga maqlaya sagaal kun oo sannadood ayay waxa weeyaan jireen sawirradani oo ay soo taagnaayeen sidoo kale Soomaaliland waxa ku yaala laba goobood oo aasaro 45 qaybood oo kamid ah waa sida laasgeel oo kale laakiin uu laasgeel oo kale iyo baan naqaan meelo badan oo la greenay baa jira adiga la soo baadhaano waa halkan sidoo kale goortii la soo saaray waxay 2003 ayaa la helay waxa weeyaan nin baa helay sababta ay waxaan oo dhan u safe garoobeen waxa weeyaan goobta shaydaanka la oran jiray marka dadku badanka ma iman jirin halkan waxa weeyaan way ka baqan jireen waxa soo jireen jimamiyo waxba jira sababtaas ay u safe garoobeen markii dambe ee la ogaaday waxaan inay aasaar hore ahayd waxa weeyaan la dawladda la wareegtay sidoo kale 2004 ilaa 2007 waxa lagu waday cilmi baaris markaas la soo saaray in ilaa 9,000 sanadood ka hor aasaartan ay jiri jirtay inta badanka wada arkaysan ama sawirada wada arkaysan inta badan waxay u badiyeen garnuug iyo maroodiyaal iyo sacyaal soo wada arkaysan hadii wax kuriya qaldanayna faarto nuu soo qaban doontaa sidoo kale garnuugtu deegaankan aad bay ugu badan tahay oo waxa weeye ilaa qarniyada way ku soo noolaan jirtay garnuugtu sababtaas aanay halkan ugu sawireen waxa weeye dadkii halkan ku noolaan jiray way inaga dhaadheerayeen inaga dad dhaadheer bay ahaayeen oo halka imika waa kaas xaga gaar waa kaas xagan imika aanu joognaa bartan waxa u dhowdahay deegaanka dhubato saddex waxaan kuriyay ansaaradda meesha jira ansaarta kale iyada waxa la yiraahdaa dhagax nabi galay taa kale bar ku taalaydana waxa la yiraahdaa dhagax maxamed tan imika bartanka imika taaganahay waa tan waa laas laakiin sidii imika waxaan kuriyay kuwa kale waan jeclay inaan tagno qorshuhu nugu jiray sidoo kale waqtiga ayaa aad u nugu yar bal waxaan eegi doonaa kuwan kale sharaxaadahooda kale walow ay dadkii hore ay aad u dhadheerayeen inaga waxaan lagu tiriyay ragga dhadheer salaan yar gacmo u fuuray maan baleen oo yaabaan dadkii hore way naga dhadheerayeen waxay cadeynaysaa aasaartani inay Soomaalidu ahaayeen dad ilbaxa oo waxa weeyaan Afrikaankii hore waxa meelaha ugu aasaartay ugu caansan bay laaskel ka mid tahay dad badan waxa jira ku taama carab baynu ka soo jeednaa laakiin aan waxaan qabaa markan meelahan oo kala arko waxa igu soo dhacday Soomaalidu inay Soomaaliyu ka soo jeedaan waxa weeyaan Soomaalidu ay taariikhdoodu ilaa 9,000 sii taxnay sidoo kale dadka deegaanka waxay noo sheegeen oo oday Muuse ka mid yahay waxa weeyaan sawirradan faraha badan leba ninkii sawiray waa ninkan waxa weeyaan sababta loogu maleeyay ninkii sawiray inuu ninkan yahay labada gacmood ee uu sidan leeyahay midna wuxuu ku haystaa gudintii uu ku qori jiray waxa weeyaan dhagaxaantan uu wax ku qori jiray ta kalena waa gacantii kale oo waxa weeyaan ninkan 6 farood buu lahaa sidoo kale ayga yar ee meesha joogaana waa aygii ilaalin jiray dadkan taariikhda ka warrama waxay yiraahdaan markan kale waxa weeyaan waa isagii oo gacantan leh oo u gaboobay waxa weeyaan waxa la saarayaa loodan baa la saarayaa saci baa la saarayaa dhagaaligaas waxa ahaa photographer-koodii artistigii buu ahaa ninkii waxa weeyaan eed iyo bidaba bixin jiray buu ahaa ninkii waxa sawiray buu meesha laftirkeeda waxaad ka arkaysaan dhaqankiida waxa kuriyo Soomaalida xooga bartaas ka daa waxa istabagay wax kuriyo riihi oo kuwa labadoodii geesood oo kuwa labadoodii naasood day waxa kuriyo calayku waxa soo barqoy inkuna ninka xaajiga dheer buu ahaa oo dheer ya dadku sidooda wariyaa waxa magaca kaliya u yaqaan waxa la dhaam ciisamana waa dhaha ciisam wala curato loo dhisa caruuraha caawinooda laga caruur raaci wallahi lix ciisamo bala wayga xayaanka dhaweyd bay baxaan wiibi cunadiisi hadda waan ka soo dhamaanay buurtii laaskel waxaan u sii jeednaa dhanka ay birtira oo isku soo yaro dabaadana waxa weeyaan muuqaalkeena buurta waxaan rajeynayaa inuu manfac fara badan iyo waxa weeyaan uu lahaa aqoon fara badan oo ku yimid meesha waxaan kula talinayaa dadka dhameynaya 2019 February guddiga saddex February soo dabaalan oo soo fuusina ama waxa ka dabaajo isku wanaagsan oo soo qabto insha Allah caawa baan ka soo noqon doonaa birtira kadib la dhag haya hargeysa loo bixi doonaa waxa weeyaan ilaahay waa wallahi ka waagan ana inta leeg baashin inta leeg abahay bay baraha dubaray u maray way aad odayga hamba bara kula dhigay war rafeed biira dhacay marna hamba bara ila dhacay aakhirkii waxa jiri
عاصم iyo muraad waxaan ku sii jeednay dhankaya berbera waxa weeyaan waxaan kula kulannay wadada shil baabuur oo ku dhacay baskan nooca rakaabka qaada iyo gaariga weyn baa shilkan ka dhex dhacay waxa weeye nin baa ku dhintay Allah ha u naxariisto hal qof baa ku dhintay waa ka dhigiisa halka ku yaala hal qof baa ku dhintay afar qofna way ku dhaawacmeen ilaahay iyagana caafimaad degdeg ah siiyo insha Allah ta'ala ilaahay baynu uga baryeynaa waxa weeyaan shilkan sababtan ugu qabanay waxa weeye maalin walba shilal baa ka dhaca wadanka oo waxa weeyaan ay sababaan gawaaridu marka dhalinyarada iyo waxa weeye dadka gaadiidleydaaba waxa weeye message-kan halkan u mareynaa waxa weeye bal is ilaaliya oo waxa weeye aayar socda ilaahay baa wax ilaaliye qofka halka maanta ku naf waayeyna ilaahay ha u naxariisto afarta qof ee ku dhaawacantayna ilaahay degdeg oo caafiyo ducaynayna qadarka mar walba fiican taxaddar waa in la taxaddaro oo waxa weeyaan aynu taxaddarno anaga dareewalkaygi waa kan insha Allah aayar baan iska sii socon doonaa wixii ilaahay qorayna waxa qadarkana waan aaminsanahay darawal waxaan ballan qaadin aayarna wadaya promise إن شاء الله قف كان أنت إلهي ونحرسته فاتحة ومرة إلهي ونحرسته لما أنت نسوي الدعاء داود ياش قف كان أنت إلهي ونحرسته أنت داو عنه وسوي الدعاء Adam on the beat. صردان دوكسانيو دايمدي عندها ايو داودي كالقعاكاي قعمها قحاد له مركاسو حسوس دابا حنحنتو ضيه سيدا لالو فهاي لقنكوكو نقضي كا ليو إلى هذا ساعات واشن تيجي لبنمو وحويان لاسكيل مرخان نخلي وحن قواصلين ونبض يرن معنا ونبض يرجلنا كدبنا نهركيسا كلها والله ما دام بالبنيات إنك بدنا يرجلنا كدبنا مركز نهركيسا كلها والله Amarale, oridei di nogote, amarale, amarale.